daawade haddii aad ku cusub tahay channelka Ilays News fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada xaqiiqada ku salaysan ee aanu sida joogtada halkan idinkula wadaagayno laba marxuun oo runtii rag waaweyn ahaa oo wadankana qiimo weyn ku lahaa oo shalay iyo daraad la kala aasay hargeysa lagu aasay waa marxuum siyaasi cali sandulle iyo marxuum suldaan cismaan cali kooshin waxaan ilaahay uga baryayaa inuu jannadiisa ka waraabiyo wax badan bay soo qabteen dadkooda u soo qabteen iyo dalkooda ehelkooda iyo reer Somaliland oo dhanna iyo saaxiibadoodna in ilaahay samariyay ma ka siiyo taas waa taas talabaad waxa weeye saaka waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrin ay mar horena ka hadlay oo heshiiskan ay xisbiyadu galeen heshiisku waa keenu ka doonaynay in heshiis galaan oo mar uun ay heshiiyaan oo doorasho ay noqotaan aynu dhowr iyo 10 sano ka doonaynay laakiin markaad eegto waxay qorshaysteen iyo heshiiskay galeen dee ma waafaqsana in dadka loo danaynayo amba sharciga dalka loo danaynayo ma waafaqsana sababtoo waxa weeye xisbiyada qaranka waqtigoodu waa 10 sano waxa siinaya law number 14 ayaa siinaya 10 sano oo marba ururada la furaya oo law number 14 ba sheegaya ururada waqtiga la furayaana waa 6 bilood ka hor waqtiga dhamaadka 26 December ayaa lagu dhawaaqay inay xisbiye yihiin sharciga 2012 26 December 2022 ayaa tigirkooda ku eegay waxa la rabaa markaa 6 bilood ka hor June 2022 in ururada la furo oo 6 bilood la sii tartamo iyaguna imka waxa qorshaysteen waxa sharcigu wuxuu sheegayaa ururadu waxa ku tartamayaan oo ku soo kala baxayaan doorashada deegaanka sida kala helaan iyaguna waxa qorshaysteen sida imka iyaga iyo commissionku ay isla dhigeen 2022 dabeeqadiisa inay doorashadu qabsoomi kartaba haday doorashada la yiraahdo wala qabanaya macnaheedu marka intee u dhaxaysa June 22 iyo dhamaadka 2021 doorashadii la qaban kari waayay 9 sano ay joogeen iyadoo hal sano wax ka yar bil ay ka hadhay teeramkoodii inay yiraahdaan waan qabanaynaa de maxaa ku jira timir la faaq jirtay maxaa ku jira waliba dadku way wareersanayeen oo waliba xisbiyada mucaaradka inay ka jawaabaan bal marka la gaaro 22 marka la gaaro tigirkiinu dhamaado maxaa la sameeynaya maxaa noqonaysaa idinku ma ururo waxay jiibinaysaan cusub ma qodobkii yaraa editriga guurtida haysay shaabada ujeedadiisiiba laga leexiyay nin walo shaqadiisii qabsan waayaba uu ku dhufsan jiray ba ku dhufsanaysaan dadku waxay doonayaan in la qanayo halka shaki baa ku jira heshiiskiinu waxaan u aragnaa inuu ka dhex aragteen common interest idin wada faa'iido taasi waa taa dadku cadeyn bay u baahan yihiin waliba xisbiyada mucaaradka xasi ruling party isagu juuq oran maayo laakiin xisbiyada mucaaradkii waa inay sheegaan bal waxa markay waqti tigirkoodu dhamaado waxay noqonayaan ilaa waa kuwan diiday dariiqii loo mari lahaa in ururo lagu furo iyaga iyo ururada ay tartamaan taa sheegeen dadka u sheegeen talabaad waxa weeyaan sharciyadeena waxaad moodaa inay jaantaa ragantoonu walba soo doono oo dhiganayo waxaan yara milacsaday sharcigan imaka doorashada ee baarlamaanka hor yaalla waxa qodobkiisa 6 wuxuu sheegayaa oo runtii aan la yaabay wuxuu sheegayaa komishanka doorashadu haddii doorashada deegaanku ay waqtigeedii ku dhici kari weydo sabab kasta ahaatee komishanka doorashooyinka oo la tashanaya xisbiyada qaranka ayaa u kordhinaya waa unconstitutional way constitution kan cid kaliya siiyay inay wax kordhiyaan waa guurta in
golayaashii qarankee la doortay ay inamada yaryar ee la magacaabay commissionku ay u kordhiyaan dee wax meesha ku jira maaha waa marin habaabin weyn anigu waxaan qabaa taasi haddii u suuro gashana in la arki doono inay iman doonaan golayaal iyo madaxweyneyaal iyagu isu kordhiya in la helay dee haddaad sharcigii cidi ilaashanayn oon cidi ilaalinayn dee nin walba siduu doono u dhigan taasi waa taas weye war markaa waxa weeyaan war dee dadku iskama aamusnee waxa weeyaan waa laydin ixtiraamayaa food bay idin siiyeen saddexdiina urur xisbiba way idin ixtiraamayaan ina ixtiraamtaan oo wuxu sheegtaan oo qancisaan ayaa loo baahanya arrimahaas mugdi weyn baa ku jira dad badan oo danaynayana way jiraanoo dee sharciga la jiiraya arkaya ta kale waxa weeyaan arrinkan kulmiya dad baa wax weyn ka dhigaya aanu kulmiya dee arrinkan ka dhex dhacay uma arko wax imika inoogu horeysa xisbiya horaa ka horreeyey xisbiyaduna runtii maaha xisbiya dadkooda leeyahay maaha markaan runta isu sheegno maynaa gaadhin waynu ku soconnaa maynaa gaadhin oo udubtii aanu asaasiyaashooda ka mid ahayd anaba tii berigii naga hor joogto oo la geli maysid wax dhibaatayna ma dhicin maxaa la yidhaa ninkan wasiirka ina muumiseen waa tii wadani laga saaray la yidhi or adiga laguma baahna mid kalaa la helay waa tii laga cay waa caadi kuwana haddii iminka qaar la yidhi dee war iska taga laydinma baahnee anigu uma arko wax cusub oo inagu soo kordhay oo meesha waxa weeyaan innagii baan weli xisbiya yeelan marka xisbiyadeenuna maaha kuwo dad isku fakiro ideology kuma kala duwana waxay ku kala duwan yihiin ma jirto waa kursigaasun see loo fuulayo ayay ku kala duwan yihiin marka xisbiyadu ay leeyihiin wax ay ku kala duwan yihiin amba wax dad wada aaminsani ay xisbigooda leeyihiin ayuu dee xisbigooda leeyahay noqdo ee kharashka ku baxaya la qaybsanayo subscription la bixinayo markaasuu dee xisbi yahay laakiin xisbi nin keligii intuu samaystay kharashkiisana reerkiisu bixinayo dee isagaa leh ma faysalba laga qaado ilaa 2002 ba haystay yaa ka qaadaya maxaa loo qaadaya isagaa leh marka waxa weeyaan waynu ku soconnaa xisbiyaha hagaagsan oo dadku wada leeyahay laakiin mar walba inta madaxdee joogta markaa ayaa waajib ay ku tahay inay dariiqay ku samaysmayaan ay raacaan oo dhabadii dadka ku toosiyaan ayaa waajib ku tahay imika laakiin baryahan dambe intay heshiiyeen anigu mucaaradba umaan arkay inay xirsiyiin wuxuu sheegayo tilmaamayo baan arkay inuu tilmaamayo leeyahay wardee waynu imika dee heshiis beenne bal halkaasi waxbaa ka yara jiree si aa loo galo inuu leeyahay ayuu maan arkaya mucaaradad maan arkayn baryahan dambena ma jirtaba waxay ku faanayaanba heshiiskii inay heshiiyeen waad arkaysi ma garatay laakiin waxaa loo baahan yahay haddii dowladdu ay mucaarad weydo way dee waxay doontay samaynaysaa way iska tegaysa markaa dadweynaha ayay la gudboontay war mucaaridkii iminka mucaarid maahee dee sidii idinku dowladda a u toosin lahaydeen inay ka fikirtaan weeye